السلام عليكم dhamaantiin saaxiibada sharafta badan. Muuqaalka filimku wuxuu ku furmayaa laba dhalinyaro, Jody iyo Brandon, oo ku tuuraya buufinada biyaha dadka lugeynaya ee u dhow. Waxay ahaayeen saaxiibada ugu fiican tan iyo waqti dheer, waxayna badanaa jecel yihiin inay sameeyaan waxyaabo xunxun. Nasiib daro intay ku raaxaysanayaan mid ka mid ah deriskooda, Mrs. Ganson ayaa ku qabatay falka. Waxay si qarsoodi ah uga duubaysaa muuqaal waxayna ku canaananaysaa inay khatar ku yihiin bulshada. Intaas kadib Mrs. Ganson waxay u kaxaynaysaa Jody hooyadeed, June, waxayna tusaysaa muuqaalka. Halkan waxaa ku cad in carruurtu ay ka daaleen Mrs. Ganson maadaama ay had iyo jeer joojiso madadaaladooda. Xitaa June ma jecla iyada. Mrs. Ganson waxay tusaale u soo qaadatay ilmo u dhow oo lagu magacaabo Jonathan, kaasoo wax ka xadi jiray deriska. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa la qabtay oo lagu xukumay 200 oo saacadood oo u adeegida bulshada ah. Mrs. Ganson waxay daaha ka qaaday in Jonathan uu weli la halgamayo ciqaabta noloshiisa oo dhanna la rogay. Hadalka kadib Mrs. Ganson waxay sii kaxaynaysaa Brandon. Hadda waxay rabtaa inay gurigiisa tagto oo ay ku dacweyso waalidkii. Dhanka kale June waxay Jody u kaxaynaysaa gudaha qolka waxayna ku canaananaysaa inay had iyo jeer dhibaato keento. Inantu waxay isku dayaysaa inay sharxdo in madadaalada aysan ahayn dembi. laakiin June waxay cadaynaysaa in haddii ay mar kale samayso aan weligeed loo ogolaan doonin inay dibadda u baxdo. Sheekadooda waxaa cad in June ay had iyo jeer dhibaatooto gabadheeda awgeed. waa hooyo garoob ah oo shaqaysa waqtiyo kala duwan si ay u taageerto qoyska. Laakiin Jody had iyo jeer waxay mashquulisaa jadwalkeeda. Markan June waxay gabadheeda xayirtay muddo 7 ah, iyadoo uga digaysa inay ku sii jirto guriga. Si kastaba ha ahaatee, kadib markay baxdo Jody isla markiiba waxay wacaysaa saaxiibkeeda ugu fiican. Labadooduba waxay bilaabayaan inay ciyaaraan ciyaaraha video game-ka. Waxaan aragnaa dhowr qof oo shaqadooda u socda. Qaar baa ordaya, qaarna muusiko ayay dhagaysanayaan, halka qaarna ay iska baashaalayaan. Waxaan sidoo kale aragnaa shaqaalaha adeega bulshada, Jonathan, oo ku mashquulsan nadiifinta aaga, balse markaa qof kasta wuu istaagayaa isla waqti isku mid ah, sida inuu xoog shisheeye ah iyaga xakamaynayo. gebi ahaanba way barafoobeen, xataa hal qof ma dhaqaajin karo farta. dabadeed nin daahsoon oo maqaar buluug ah leh ayaa Jonathan gadaal uga yimid oo gacmihiisa ku qabtay. Intaas kadib muuqaalka ayaa markaa u wareegaya Jody iyo Brandon, kuwaasoo weli ciyaaraya ciyaaraha fiidiyowga. hal shay ayaa u horseedaya midka kale oo waxay bilaabeen inay ku dagaalamaan qolka dhexdiisa. Nasiib daro waxay ku dhamaanayaan burburinta telefishinka. Isla mar ahaantaana June ayaa soo gashay iyadoo xanaaqsan. Waxay dirtay Brandon, kadibna waxay bilowday inay ku canaanato gabadheeda inay tahay khayr mas'uul iyo taxadar la'ay. Marka hore waxay u yeertay saaxiibkeed markii la xayiray, kadibna waxay jabisay TV-ga. waxaa la yaab leh inay inantu ugu jawaabtay in uu ahaa TV oo keliya. weli ma rabto inay qaado mas'uuliyadda ficiladeeda. Markay tan maqasho, June way xanaaqday, waxayna bilowday inay ka fikirto in Jody ay danayso iyada iyo in kale. waxay ku andacoonaysaa inay aad u sii duqoobayso sababtoo ah waxay u shaqaysaa si adag. Muuqaalka xiga, Jody waxay u soo degtay dabaqa hoose, halkaas oo uu ugu yimid nin oday ah oo cabsanaya. cid kale maaha ee waa Jonathan oo aad u duqoobay kadib markuu shisheeyuhu taabtay. Jonathan wuxuu isku dayayaa inuu u sharxo dhammaan dhibkii ku dhacay Jody. Si kastaba ha ahaatee, iyadu ma aqoonsan isaga. haddaba say u fahamto, wuxuu la soo baxayaa sanduuq weyn oo uu ka tegay ninka shisheeyaha ah. waxaa dul saaran kaar ay ku qoran tahay qaado, anna waan kaa qaadanayaa. Jody way ku weerartay aaladda qariibka ah, laakiin ka hor intaanay wax ka weydiin, Jonathan wuu cararay. muddo kadib Jody waxay go'aansatay inay sanduuqa geyso guriga say u baarto. Si kastaba ha ahaatee, ka hor intaanay qaadin ayaa waxaa aragtay Mrs. Ganson tii khiyaanada badnayd. waxay u malaynaysaa in gabadhu ay xaday aaladda, sidaas awgeed ayay iyadu iskeed u qaadatay. Jody waxay isku dayday inay u sheegto in nin oday ah u hibeeyey iyada, laakiin waxba ma tarin. muddo kadib Mrs. Ganson waxay ku qarisay sanduuqii qariibka ahaa khasnadeeda oo way tagtay. Jody ayaa ka daawanaysa meel u dhow waqti munaasab ah. waxay aadaysaa khasnada oo furaysa iyadoo adeegsanaysa biinka timaha. kadib waxay la soo baxday sanduuqii oo ay u qaadatay gurigeeda. halkaas ayay ku furtay oo waxay gudihiisa ka heshay qalab yaab leh. iyadoo yaaban ayay riixday oo waxaa la yaab leh adduunka ku wareegsan ayaa barafoobay. laakiin Jody ma arkin weli, oo markay badhanka mar kale riixdo, wax walba sidii hore ayay ku soo noqonayaan. isla markiiba hooyadeed ayaa qolka soo gashay oo weydiisay halka ay ka keentay qalabka. Jody waxay isku dayaysaa inay u sheegto in saaxiibkeed uu hadiyad ahaan u siiyey, laakiin June waxay u malaynaysaa in gabadheeda ay mar kale bilowday inay wax xado. markaa waxay ka dafaysaa aaladda waxayna isku dayday inay iska tuurto. laakiin isla markaas Jody waxay si bareer ah u riixday badhanka. sidaas awgeed wax walba way istaagayaan oo ay ku jirto hooyadeed. tani waxay ka nixinaysaa Jody in muddo ah, laakiin isla markiiba waxay bilaabaysaa inay ku ciyaarto. marka hore waxay khiyaamaysay June iyadoo istaajinaysa oo ka qarinaysa sanduuqa. dabadeed waxay ka soo baxaysaa gurigeeda inkastoo ay xayirneed oo waxay la kulantay Brandon oo isna waqtiga istaajiyey. gacan wuxuu ku haystaa telefoonkiisa, gacan kalena jalaatada. Jody ayaa bedeshay oo markay waqtiga socodsiiso, Brandon ayaa si lama filaan ah dhegtiisa u geliyey jalaatada. isagoo naxsan ayuu weydiiyey siday ku samaysay. Jody ayaana ugu dambeyntii daaha ka qaaday runta ku saabsan aaladda qariibka ah. intaas kadib labaduba waxay isla riixayaan badhanka, waxayna go'aansadeen inay xoogaa madadaalo ah hoos ugu degaan. waxay arkayaan dhowr qofood oo barafoobay oo bilaabay inay mid mid ula falgalaan. marka hore waxay sandwichka haweenay ku bedelayaan ubax, kadib ukun ayay hoos geliyeen lugaha naag kale.
waxay xitaa khalkhal gelinayaan nin iyagoo u jeedinaya jihada tuubada biyaha isla isaga. Markay bananka riixaan oo ay wax walba furaan, fawdo ayaa dhacaysa. Dadkii oo dhan aad bay u caroodeen laakiin ma garanayaan sida ay wax u dhaceen. Intaas kadib carruurtu waxay go'aansadeen inay guri u aadaan oo ay cunto soo xadaan. Waxay u muuqdaan inay haystaan waqtigii ugu fiicnaa noloshooda. Waxay ka caraysiiyaan dadka, waxay cunaan wax kasta oo ay rabaan oo xitaa xadi karaan lacag iyagoo aan la kulmin wax saamayn ah. Si kastaba ha ahaatee ma oga in wax walba ay ku yimaadaan qiimo. Qofba u iman doona inuu cashar u dhigo. Muuqaalka soo socda iyadoo Brandon iyo Jody ay ku sheekaysanayaan qolkooda waxay maqleen sawaxan lama filaan ah oo dibadda ka imanaya. Tani waxay ka yaabisay iyaga maadaama dunidu ay tahay inay ku jirto qaabka barafoobida. Si tartiib ah ayay dibadda ugu soo baxeen say u baaraan oo ay u ogaadaan in Mrs. Ganson sanduuqeedii uu qof jabiyey. Isla markiiba labadooduba waxay maqleen xoogaaraad ah oo ku soo socda oo ay argagaxeen. Markaas Brandon iyo Jody waxay iska yeelayaan sidii iyagoo barafoobay. Dhowr ilbiriqsi kadib ninka buluuga ah ee daahsoon ayaa u soo dhawaaday iyaga. Wuxuu si fiican u soo kormeerayaa labadan dhalinyaro. Inkastoo uu ku dadaalay inuu cabsi geliyo, haddana ma aysan dhaqaaqin. Tani waxay ku qancisay isaga in Brandon iyo Jody aysan ka shakin, sidaas darteed wuu ka tegayaa. Muddo kadib iyadoo dhalinyaradu ay ka fikirayaan qorshahooda xiga, waxay maqleen Mrs. Ganson oo ka qaylinaysa qolkeeda. Iyagoo argagaxsan ayay u degdegeen say u baaraan dariishada ayayna ka arkeen ninkii buluuga ah oo taabsiinaya Mrs. Ganson walax buluug yaab leh. Midkood ayaa weydiinaya sababta uu waxaas oo dhan u samaynayo. Ninkiina wuxuu tusay kaar la mid ah oo ay ku qoran tahay qaado anna waan kaa qaadanaya. Halkan waxaa lagu ogaaday in Mrs. Ganson lagu ciqaabayo inay had iyo jeer wax ka xadi jirtay deriskeeda. Inkastoo ay si adag ula dhaqanto carruurta oo ay ku canaanato baashaalka, iyada lafteedu waa tuug kale. Ninkii buluuga ah ayaa arrinkaas ogaaday oo qayb ka mid ah wejigeeda bedelay isagoo ka dhigay haweenay da' ah. Nasiib daro markuu dhameeyey wuxuu arkay carruurta oo daaqada ka eegaya oo uu dabagalay. Jody iyo Brandon waxay si degdeg ah ugu yaaceen dabaqa sare oo ay isku soo xireen qol. Waxay isku dayeen inay xaaladda falanqeeyaan. Tanina waa markay Jody ay ogaatay in odaygii u soo dhawaaday uu dhab ahaantii ahaa Jonathan. Waxa kale oo lagu ciqaabay inuu saameyn xun ku yeeshay bulshada. Hadda ninka buluuga ah wuxuu u badan yahay inuu daba socdo Jody sababtoo ah waxay ka xaday sanduuqa isaga. Intay argagaxday ayay qorshaysay inay si degdeg ah ugu celiso iyadoo rajaynaysa inuu ninka iska cafiyo. Labadii kadib waxay uga tageen sanduuqa xagga hoose oo sugeen inta uu ninku soo baxayo. Si kastaba ha ahaatee qorshuhu ma shaqayn. Inkastoo ninku uu dib u helay sanduuqiisii, haddana ma joojin dabagalka carruurta. Baacsi yar kadib aakhirkii wuxuu ku soo xiray qol oo uu u sii gudbay Brandon. Laakiin isla markaa Jody ayaa joojisay isaga. Waxay ka codsatay ninka buluuga ah inuu iska dhaafo saaxiibkeed ugu fiican, iyadoo ku andacoonaysa inaanu wax shaqo ah ku lahayn. Waa tii sanduuqa xaday oo u adeegsan jirtay baashaalka. Hadduu jiro qof u baahan in la ciqaabo, waa iyada. Markuu tan maqlay ninkii buluuga ahaa wuxuu ka tegay Brandon oo aaday iyada. Wuxuu ku sigtay inuu ka dhigo haweenay da' ah, laakiin markan Brandon ayaa joojiyey isaga. Wuxuu ka codsanayaa ninka inuu iska dhaafo, iyagoo uga bedelanaya inay diyaar u yihiin inay saxaan dhammaan qaladaadkooda. Jody waxay weydiisay inay sababtu tahay waxyaalihii qosolka badnaa ee ay ku sameeyeen deriskooda, laakiin ninku wuxuu yidhi maya, balse wuxuu u tilmaamay June. Markay ogaatay arrintan, Jody waxay ugu dambeyntii ogaatay in ninku uu u daba joogo siday ula dhaqmayso hooyadeed darteed. Had iyo jeer ma ixtiraamto oo way ka ohaysaa. June waxay isku daydaa intii karaankeeda ah inay siiso nolol wanaagsan, laakiin Jody iyadoo khayr mas'uul ah weligeed uma qirin dadaalkeeda. Iyadoo taas garwaaqsanaysa, Jody waxay ballan qaaday inay noqon doonto gabar wanaagsan hadda wixii ka dambeeya. Ninka buluuga ah ayaa ugu dambeyntii ogolaaday ka hor intuusan tegin. Si kastaba ha ahaatee wuxuu qabanayaa gacanta Jody oo uu ka dhigay gabow, isagoo siinaya tusaale yar oo ku saabsan waxa dhici doona haddii ay mar kale ku caasido hooyadeed. Muuqaalka ugu dambeeya, labadii dhalinyaro ayaa joojiyey inay kuwa kale ku jeesjeesaan. Waxay hadda isku dayayaan inay caawiyaan qoyskooda iyo cid kasta oo baahan. Waxay sidoo kale u ururiyeen lacag ku filan si June ugu soo iibiyaan telefishin cusub. Muuqaalku wuxuu dhammaanayaa iyadoo Jody ay hubinayso gacanteeda duuduuban oo ay muujinayso mahadnaq ku wajahan ninka buluuga ah ee bedelay nolosheeda. Muuqaalka halkan ayuu ku egyahay. Fadlan taawo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kale. Kulanti dambe oo aad u xiiso badan. Mahadsanid.